waxaa habeenkii xalay ahayd ka qabsoontay magaalada Hargeysa xaflad ballaaran oo lagu sheecinayay musharaxnimada Cabdiqaadir Axmed Batuun Barre oo sharaxan golaha wakiilada ee Somaliland. xafladan shaacinta musharax Cabdiqaadir Axmed Batuun Barre oo si weyn loo soo agaasimay isla markaana ahayd mid bilan oo boqoran ayaa lagu qabtay hotel Scandinavian ee magaalada Hargeysa. waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga Wicid Engineer Faisal Cali Waraabe, xubno ka tirsan xisbiga Wicid, cuqaal waxgarad dhalinyaro, haween iyo bulshada aad u tiro badan oo taageero la xal loo muujisay musharax Cabdiqaadir Axmed Batuun Barre. مسؤولينta halkaasi ka hadlay ayaa taageero mug iyo miisaal loo muujiyay musharaxa. halkan isku soo sharaxay golaha maxay baarlamaanka waan ku hambalyeynaa waan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo lagu soo kala horeeyay oo la kala lahayn ayaan kugu soo dhaweynaa gacmo furan baan ku leenahay. asalaam gacmo furan baan ku leenahay soo dhawow waxa kale haliyay weeyaan talkiibu u yahay hormuud haliyay weeyaan halkiisa ku dhiiranahay aqoonyahan fuula weeyo ducaa la faray ilaahay iidankii inagoo intaa ka badan oo ka tayo badan oo barbar taagan oo ilaahay tawfiiqdayna waafajiyay oo isaf garanay oo mid noqonay ayaynu inankeena maka maxaa ku dhahay shaacintii iyo maanta xafladiiba horeysiistay ayaynu insha Allah isugu biyashubanaynaa bismillaahi kariim. waxaan leeyahay haddaad tihiin beeshan caawa nagula soo qayb gashay inankayaga karaamada leh ee idinku aan naga durugsanayna idin soo dhaweeyay aad baan u salaamayaa waanan hambalyaynayaa. haddaadtihiin beeshan imika nala joogta beelaha noogu durugsan xisbiga Wicid haddaanu nahay ayaa ahaydeen ee haddana ah tolkayaga midigtayada ee lagama maarmaanka ah ee baaxadda leh. haddiise maanta aynu isla garannay oo garateen inuu nin waliba gurigiisa xaarxaaranayo uu wax ku yahay uu ku karaamaysan yahay annaguna qalbi furan ayaanu idinku soo dhawaynaynaa idinkuna hambalyaynaynaa idinkuna waxaanu u qaban karno waanu u qabanaynaa kollayba waanu helaynayno haddaanu haweenka nahay idinka umaanu idin halgamaynay. haweenka waxaan leeyahay in badan baynu xiiqsanayn haddaynu xiiqsanayna intaynu u xiiqsanayn waa inteena uun nainankaa waxba ha kala hadhina. waa xasan wadaad ninkii idin tala aanu geynin iyoon iskala magadu ahaa waa la garanayaa xildhibaanka waanu u ducaynaynaa. beeshii dan wadaago inay noo keentay musharax culus oo aqoon-yahana oo ah awlaadul caasima Cabdiqaadir Axmed Batuun oo uu dhalay ninkii caanka ahaa ee ganacsadihii Hargeysa raggii budligay ka mid ah Xaaji Batuun. waxa weeye dadkii loo baahnaa waa nin aqoon-yahana maantana xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Wicid qorshihiisu waxa weeye dadka cid walba sharaxi maayo wuxuu sharaxayaa dadka aqoonta leh. wada xisbiga waxa keenay xildhibaanka beeshiisii baa keentay wadankana waxa ka jirta dimuqraadiyad qof walba xisbigu doono iska sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay musharax Cabdiqaadir Axmed Batuun. aad baa mahadsantihiin inta ay ka soo qayb gashay xafladeeda tani waa hiilba intiisa soo bixisay say wiilisay maalin ka rabaa inaa codkayga insha Allah ay siisaan maalinta ay doorashada timaado. waxaan halkan idinka hambalyeynaya dhammaantiin waxaan ogahay oo aanu ognahay haddaynu nahay dan wadaago xisbigeenu waa Ucud qofkii kale keena wax kale ama la mara waxa weeye inuu meel khaldan marayo waynu ognahay. waxa weeyaan Ucud waxaanu mahadnaqaynaa Faisal Cali Xuseen oo maanta si dhaqsaa oo weliba waqtigu ku yaryahay inoo aqbalay inuu inala meermariyo musharaxnimadeeda. waxaan ogahay inaanu codkeena laga khasaarayn waxa weeye inaanu codkeenu kala jabayn waynu hubnaa
waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dad badan oo rag iyo dumarba leh oo dalka gudihiisa iyo dabadiisaba jooga laxajecla idinka lahaayeen markay aniga ii yeedhayeen ay muddo badan daba socdeen waa iyagaa yidhi isi soo sharax iyagaan yidhi wax u qabo toolka maanta aqoonta iyo kartida aan leeyahay waxa weeye maanta haddaan wax ugu qaban dadka iyo dalka waxay noqonaysaa midaan waxba ka jirin waxaan idinku ballan qaadayaa inaan noqonayo ka u adeega daddan wadaago ka u adeega dalkiisa dadkiisa iyo xisbigiisa ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga UCID injineer Faysal Cali Waraabe cidii noo keentay musharax Axmed Barre Axmed Batuun waanu aqbalay inaan xisbiga UCID ka sharaxno waa aqbalay walaalaya waxa weeye anagu Barre baan ogonin waxaan naqaanay aabihii ilaahay naxariisay Axmed Batuun oo hadin aad qiimo leh oo mashariya dabacta xubnood ee nolojeed waxaan u qaybinay beelaha deegaan baan u qaybinay reer Soomaaliland maadaama marka Hargeysa ay noqotay nolojeed Hargeysa caasimad qaran oo dad badan markooda deganaan jiray ay yeesheen ku yeesheen ku yeesheen waan u qaybinay marka beesha oo ka soo jeedo Barre beesha idagala la yiraaho qaybtii aan u qaybinay ayuu qaybtiis iyo ka soo qayb galay isna helay waxay la tahay dawaadan doonayno wadanka isbeddelka ku sameeyo xamse jaamac telefishinka caalamiga Sum News magaalada Hargeysa.